مسؤولين كسعودة حفيزك عدالة دولة الديغان كصوماليدا وهجامينيي وزير كحجين كحفيزك عدالة الديغان كأيام كلن لغو قيمانيي وقبتي حفيزية عدالة الدقمدة يكوى قبل كنتولو كوحدن وهجامينيي وزير كحجين كحفيزك عدالة الديغان كمدن محمد داهر إسلام مركزنا يكوى لينيين مسؤولين كانوا سوق على حرونتا قبل كنتولو مقالة وردير ayaa qiimeeyay xafiiska cadaaladda ee gobolka iyo kuwa degmada qiimeyntan ayaan ahayd mid ay ka wadeen guud ahaanba xafiisyada cadaaladda ee degmooyinka gobolka Doolo taasi oo diiradda lagu saarayay dardargelinta shaqooyinka xafiisyada degmooyinka iyo shaqooyinka ay bulshada u hayaan kulankan ayaa lagu qiimeeyay hay'adaha kala duwan ee cadaaladda ee gobolka iyo kuwa degmada Wardheere ugu dambeyn qiimeyntan ayaa lagu qabtay ilaa iyo 5 degmo oo kamid ah degmooyinka gobolka Doolo isla markaasina ay ka sii socon doonto ilaa iyo inta ay ka soo gabagabeynayaan degmooyinka kale walow ay intooda badan soo gabagabeeyeen mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay inay wax badan oo isbedel ka arkeen intii ay ku guda jireen qiimeyntii ay ka wadeen degmooyinka gobolka Doolo sala socotaan xafiiska cadaaladda wuxuu wadaa reform culus oo ku jiray intii isbedelku jirayba waxaana loo kala diray guud ahaan gobolada deegaanka oo dhan tiiman kala gedisan oo soo eegaya qaab shaqeedka shaqaalaha xafiiska xeer ilaalinta ee ku kala sugan gobolada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka saad la socotaan qodobka 12aad ee dastuurka Itoobiya waxa uu dhigayaa qof kasto shaqaale ah in lagula xisaabtamo shaqadii uu hayay bulshada anaguna waxaanu ku qoranahay tiim ahaan waxaan hogaaminayay wasiir ku-xigeenka xafiiska cadaaladda mudane maxamed daahir xaashi gobolada Doolo iyo Qoraxay waxayna noogu socotaa qiimeyntu si habsami leh waxaanu soo marnay dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Doolo gobolka Qoraxayna waanu ku dambeyn doonaa qiimeynta waxa kamid ah qodobadooda in la isla xisaabtamo isla markaana la ogaado waxa ay ku sugan yihiin xeerlayaasha ku kala sugan degmooyinka iyo gobolada waxaanu ka duulinay anshaxoodu waa nuucay aqoontoodu meeyinkuwi loogu talagalay adeega sidii loo baahnaa ma loo bixiyaa waxaan la socono kulli waxa jira dad badan oo aan sharciga baran oo ku jiri jiray hadda ka hor ma garanaysaa xafiiska cadaaladda inta kadib xafiisku dadaalo uu sameeyay waxa uu ku xareeyay kulliyadaha waxbarashada sida jaamacadda Jishiyo kale xilliga samarka laakiin shakhsiyaad ku dhex dhuuman kara way jiraan sidaa daraadeed waxaan u soconaa in la soo eego xaaladda dhabta ee shaqadu ku sugan yihiin adeegii loo baahnaa dadka ma siiyaan anshaxoodu waa sidee xeer ilaaliyo faylash si loo baahnaa ma uu ogaa wada shaqaynta hay'adaha cadaaladda waa sidee ujeedadii loogu talagalay uu asaasnaa xafiiska cadaaladdu ma yahay mid kamira dhalinaya performance-ga xeer ilaaliyo waa sidee anshaxiisu waa noocee qiimeynta qodobada saasay noqonaysaa kulli haddii la yiraahdana gobolkan Doolo inkastoo ay noo soo wada dhamaatay degmada Wardheer ay noo harsan yihiin leelo yicub taa un bay kamid tahay saad la socotaan sunnaha dawladnimo ayay kamid tahay in la isku xisaabtamo qiimeyn dabagal kormeer iyo taakulayn marka ujeedka kormeerka iyagana wuxuu ahaa sidii xeer ilaaliye kasta oo ka tirsan xafiiska cadaaladda loo soo ogaan lahaa qaab shaqeedku ku sugan yahay sugnaanshaha goobta shaqada ma ku sugan yahay anshaxiisu waa faylash si loo baahnaa ma u diyaariyaa institution-kan ujeedooyinkii loogu talagalay ma yihiin mid xambaari kara oo haybadii xafiiska cadaaladda ay ka muuqato marka arrimahaasaan ونمت فرينتي دو دنبيسه waxa weeyaan kulli tole in qiimeyntan ay tahay qiimeyn qoto dheer isla markaana lagu soo saari doono dhibaatooyinka ka jira xafiiska cadaaladda qofkii anshaxumo ku sifooba iyo waxyaabaha qodobada qiimeyntu ka koobantahay in laga talaabo qaado kii shaqo wanaag mutaystana la dhiiri geliyo ee talaacad mutaystana halku ku haboon yahay la geeyo marka qiimeynta qotada dheer ee la sameyn doono waxay noqon doontaa mid natiijadeeda laga arki doono xafiiska cadaaladda isla markaana isla bedel la taaban karo insha Allah mustaqbalka inoo horseedi doonto marka farinteedu u dambaysa saas u mid Bashiir Abbas Ali warbaahinta deegaanka Soomaalida SR TV magaalada Wardheer